السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارته سوداواد مرلبات إيو قصة كلا قاون إن شاء الله بإذن الله وحان رجينا إنا شيكدان إني عجبسو أو قابن أو reality وحضرون ودعايو especially أمريكا يوروب وكدعايو إسكابلوينك so مسيف مكسي شيكينا مسوا سيقل قلينا أو قلنا وداونينا دعوة شوعان مصطفى علي الظاهر نمبر كيسنا الراديو مصطفى علي الظاهر يفتحوا نكاس ليوال مصطفى علي الظاهر ديك خوريزة مصطفى خوري علي الظاهر ما العسية مصطفى بس لباحة مقرطة أنا يا رسول سوق الولادي هاي مكة اوكي واكنا مصطفى لباح قصي ولا دعوة يرتكو خبصة العكس. السلام عليكم لباح مقالة ذا مصطفى علي الظاهر لباح سيتا حال ضعف مات كاي أنا وقوف في عناي مرتكو دنا أكتر يسوق قشي ولا الكيجيوب ندمتها أو ساحي وقول الآن أفضل يرتكو كي أتوقيت هذا كور إيواني هيسي اسفهموا وين هذا لو يمكن ديس يرتكو يوصل عليه هذا كاس بس قفكت هل مر فيري يعني خلاص ميور ميزانكيس دad كيف وحنا اسكو شاكن قف عمها كان فيوتشر ملها سي اديس الناس soo baxay saaxiibkii waa buu qaweenkii bisaax kar subaxdii shaqan leena ogtahay soo dad xaafad ma joogta muxuu iman karaa kaliya meel inta jooga saaxiib waxa sameeyay ma la fikir ma dayaa wacda ya la hada يا إسبانيسي تدورت كوا جرامو يجنا روميت راتي وين ساكي هاوي أكيد سوم حد يمركنا كوي ماذا هو حافظ هذا كوي شيء كسنة أوكي والله بيلا يا فترة ناس يعني نه يباح يعني نعرس ويا أدرس كي صوت المرك عند وصل خاجنا إن شاء الله أوكي واي إن شاء الله أدرس كي صوت عليه واي السلام عليكم باي نقطة أصيغة فيرنا يعني الفهم وعيها ارتكوا أصيغة لكن سنين أعضك عملوا وأعضك نو أوكي هي روكي سنو أذك يا عملنا لكن وأوضح هنا إن شاء الله قبل ها إنه حي دعا دونا بديه كرنا حتى محا دعا دونا محاس دعا دونا كل يوصل نظيف وخطر انه اوكي ان شاء الله قالوا فيرنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتها ولكن هي أخوكي واي أنا سوق الكرا وما أصدقائي سواء أني واي أخوكي أو واحد سوق عي يورو ما تكرهني نقول رئيس كهاي ولكن كل بريء واسرة صاحبكي إن شاء الله. اوكي وما حصلتها ولا الكيو ساتي شرفتي يوسو دويسي غريغاغا ادي هذا ما حصلتها ان شاء الله واكس واك ولا هذا كرنا ارنتا او سي غدغلنا
sida wax uu jiro iyo rulalka isi wax u jeceshahay ama ijaarka sidaad u dhiibtid iyo bilalka maxaad dhiibtaa koronto biyo sida nidaamkaas yahay oo bidhimadan hadda ku jirto waxay soo tataa walaalkay وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo dhawaaw sida balkan uu fahmay romeda raadinaysaa guri qof ula degtida rabtaa soma anigana waa raadinaya qof macna romed sida uu soo sheegay oo maxamed uu soo sheegay maxamedna ixtiraamayo waa maasha Allah soo walaalkaygi horta ko soo dhawaaw laba meel horta ko dhibaato waa la kulmaa mar walba qofka loo dagaayna waxa laga yaabaa in dhibaato la kulantid because dabeecooyinkaaga ama sida aad jeceshahay ama sida aad rabtid inaad uga helin because hada qof maanta oo joogo ama guriga aabihiisa ama guriga hooyadiisa ku jiro ma jiro soo marka waa la iskaabuleenooyaa iskaabula la wada yahay iskaabulna mar walba haddii ay noqoto xataa gabdhaha isla dagaayo ama haddii ay noqoto ragga isla dagaayo yani mar walba ma isfahmayo walaalkay haddii la isfahmayna dhif iyo naadir waayo waan dareemi karaa walaalkayga waan dareemi karaa dhib male laakiin dhib male waan taabaca roolka sidaad arkaysid oo roolka isku munaasib yahay aad dhehaysid saanaan samaynayna ama saanaan ku wada soconayna waa diyaar walaalkay markii hore ama qofkii ku ildegnaa jiray dhibaatooyinka la kulmay mar walba macnaa artu qof oo jeclaysanaya ma jiro waa laga yaabaa qofka inuu murtax ku noqdo dadka qaarkooda laakiin aniga absolutely kama helin arrimahaas oo ka mid ah bulsho badan dad badan ay imaanayaan maanta ay kan saaxiibkeega waaye gabadhana saaxiibteeda waaye yani xabadeeda waaye okay xabadaada waaye maanta maalintii kala arkaysaa xabad oo kala socoto xabadii soo raacaysaa idina friendkeeda wadataa wiilaa la socdo isku leeyahay intii caawo ay la seexanayaan state kale ay ka imaadeen gabadha dumaashidaada walaasheeda waaye waxyaabo waxaa bilaabanaya maaragtay adina sidaas u socoto afar qofood ay ahayn adiga la ultimo week 2 weeks amal leerar waxay sheekada ay gaaraysaa sideed qof baa la taagan yahay bano sideed qof ay noqday gurigii waxay arkaysaa maalintii kale sideedii qofood iyagoo ku ahayn isluub waxa uu maleeyay in shaqada ku maqan tahay waxay arkaysaa soo naqinay maanta albaabka marka laga furo qaaca waaf ku soo dhaafano shiisha ka shidan saddex shiishada bashidan ma macnaa faanti flavorka kala duwan uu leeyahay adii qofkii guriga ijaarti oo shalay la dhahay saaxiibo meel ma haysti ma batiyid banoode adiga waxaan qoysaa qof oo homeless ahay oo adiga hadda oo loo keensada leebtaay bano ma batiyid baday qofkii oo maanta la tutuugay saaxiibo meel ma haysti ee qolkii ijaar soo marka waxaad gaaraysaa adiga ama loo gaarsiina macnaa 300 hadii lagu la dhiibayo inaad dhaag saaxiibo 300 adiga hadda ijaarka la dhiibayo ana ku daray 300 kala ku siina meel kala raadso bas yani buuqan iyo waxyaabahan oo igu haysiin ama jiif daradan ama jiif xumadan igu haysiin le bas iga dheeray iyo mashaakilkii buuqin ma fahad macnaa soo dhibaatooyinka badi laga kulmaa wax waa bulshada yani dad ma shaqaystayaal oo shaqo rabin oo ama familkooda ka soo cararay ayaa guriga lagu keenaa kadib waxay noqonaysaa gurigii guri ma noqon ahaanay marka waxa isku bedelaa meel oo adiga baashaal iyo wax loo imaado ma fahanti shiishada iyo sigaarka lagu caawo amal haweenkii buuq ma biseex karta heesa lagu shidaa niikis dhaxda bal xirno in inaaq waa lisku niikiyo yab gaaray sheekal saaxiib soo waxyaabahaas oo kale hadda dii aan kala hadlin saaxiibo soo hadhow yani safety marba jaaqorda dii ay korto soo wax laga gaarinay ama markaas aan ka hadla karo binaqiisa gurigii wax kala ma jiro roolka waa badihiina soo geey okay kule dib mal ana dan leh oo ay afrikana lu fixkaariya ogtahay artko ijaarka waa $600 okay nus aan ka dhiganayna $300 aan kala dhiibanayna waxa kala jiro koronto intay keento almost ay keentaa $50 bishii
so 25 ayaa qofkii kusoo toosaysa laakiin I'm not pretty sure yani ma hubo ma ku dhaha kari maanta konton ay keenay bil walba waa ogtahay macnaa roolka ama nolosha Mareykanka guryaalka ay situation sida loo isticmaalayo ku xiran tahay korontada taas way wax kale ma jiro maanta loo walwalaay sida biyaha oo kale iyo heatka waxay saabsan tahay building ay saabsan tahay macnaa to anaga ma dhiibeen wax ma dhiibo heatka kuleelasada guriga wax ma dhiibo la korontada ay imaado iyo ijaarkaasaan dhiibaa heatka ma dhiibo qashinka lacag ma dhiibo qashinka tabcan lacag ma laga dhiibo markaan dhehayno waxaan ogtahay housing yaalka qashinka dhiibeysa dhulka waxyaaba beerta lagu jaro cagaarka la dhiibaa laakiin building aan ku jirno hadda anaga ma dhiibno garage-na ma ijaarno hadda rabtidna adi choice kaaga waa markaas garage ijaar waxay ku jirtaa kaaseti laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa gurigii oo maanta oo dhehaysi waa kula soo degaa so markii ijaarka si aan ku sheego waa 600 bishan aan dhiibaa muslimsan kala dhiibeena 2 qol waa guriga sidaad u jeedid qolka weyn anaa hore u qaatay sirrteeda wixii ugu jira qolka yarisna waa aragtay kaas dhammo u yaraa asagana oraah Soomaaliyeed ayaa wax ahayd walaal hadda rabtina kala geesid hal saxan raashin ugu soo dhig eega isna cadoono ama kala taga doono so hadda anagoo taas oraahdaas ognaa oo og macnaa inay taas ay jirto ayaa macnaa hadda duruuf isku keenayso oo dhehayna man duruuftaaseti ayaa ka weyn macnaa dhibaato iyo dhib ama waxyaabo oo isku dhac ahaan inaan iska dhoorno ama inaad ilaahay naga qabsado anaga waa tiraay gareynayna walaalkay yani anaga xooga saarayna sida aan isku dhici lahayn oo farxadeena ama isku fahma lahayn fahamkaasid ama iswadaaga ama isku garab qaba lahayn and because ad naftarkaaga hadda ina kaliga degnaatid oo dhib iyo buuq strawberry lagu furo madax xanuun lagu furo ma jeceshid anibo wallahi ma jecli laakiin duruufta ka weyn ileen waxaan rabnaa inaan kaalmeyno familiyaalka familiyadeeni oo Afrika ku maqan ama yani maanta awood aan u haynin inaan ku keeno ama aan rabnaa inaan wax u qabano inaan lacag aruurin waa rabnaa haddii dhahna maanta aan guri weyn aan degaa oo macnaa kun iyo wax la jiro $1 bishii dhiiba waxa laga yaabaa inaan awoodis dhan lahayn haddii lahaadana maanta waxa laga yaabaa inaan shilin ii soo herin so marka waxa xoog aan saarano maanta waa ayaa wax soo ku save gareyn lahayn adina wax ku save gareyn lahayd because adnaftarkaaga maanta ma dhihi lahayn roommate ahli soo raadi ama roommate ahli keeno oo nin isfahmayno oo Soomaali dhiigeega ah muslim ah salaadiis dukana shanta waqti oo nadiif macnaa daahirna ay ahaanay guriga Soomaa so diyaar waa insha Allah bin la walaalkayga shaqadan kale aan qabsado yani sidii oo maanta haboon oo saxsan inaan wada sameeyno ayaan insha Allah xoog saarayna